halkani waa BBC oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo barteena internetka ee bbcsomali.com. kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad inaga maqlaysaan waa galabnimo talaado ah 19 bisha Febraayo ee sanadka 2019. barnaamijkuna waa barnaamijkii dunida iyo maanta oo arrimahan idinkugu hayna ay ka mid yihiin qaar ka mid ah ganacsatada qaadka ee Muqdisho oo sheegay inay joojinayaan qaadka ugu yimaada wadanka Kenya. haddaba sababtu maxay tahay? qaadka waa iska joojinaynaa waxaanan helay mid ka fudud oo qudaartayada iyo kalluunkayaga iyo magarata lagu bedelayo saas adligeed kan waqtigiisii waa dhacay taymkiisii waa dhacay meeshiisa ha u dhaafeen. ra'iisul wasaaraha wadanka Pakistan waxa uu sheegay in dalkiisa uu argoosan doono haddii Hindiya ay soo qaado tallaabo military. wiil uu dhalay madaxweynaha Uganda oo la dalacsiyay darajada sareeyo guud oo ah jagada labaad ee ugu sareysa ciidamada dalkaasi. halka qaramada midoobay ay ka walacsan tahay xaaladda dadka rayidka ah ee isku dayaya inay isaga soo cararaan deegaanada Suuriya ee uu gacanta ku hayo ururka dawladda Islaamiga. qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan oo ay wada jirka idinkugu soo saareen Maxamed Cabdiraxmaan Sheekh Axmed Badarna uu sidoo kale barnaamijka wax ka soo saaray wada jirna idin la soo codsiinayaan anigoo Cabditax Ibraahim Cagayare iyo Kawthar Maxamed. marka horese barnaamijka dhageystayaal waxaan ku bilaabaynaa wararka caalamka iyo Ciise Xaaji Cabdulle. mahadsanid Cabdi Fataax. madaxa guddiga xuquuqda aadanaha ayaa walaac ka muujisay halkay ku dambeyn karaan dadka rayidka ee isku dayay inay ka qaxaan goobaha ay weli haystaan IS ee waqooyiga Suuriya. Michelle Bachelet ayaa sheegtay in qoysas gaaraya 200 oo qof oo weli ay ku xaniban yihiin goobaha yar ay weli ku sugan yihiin kooxda isugu yeerta dawladda Islaamka isla markaasina dadkaasi laga hor istaagay inay goobtaasi ka baxaan. waxay intaasi ku dartay in 100 kun oo qoys oo ku nool Idlib iyo waqooyiga Xalab ay xaalad xun ku nool yihiin isla markaasina ay halkaasi ka socdaan duqeymo xoogan oo ay geysanayaan isbahaysiga uu Mareykanka hogaaminaya. ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan ayaa sheegay in haddii ay Hindiya qaado tallaabo military ay ka argoosan doonaan. arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii weerarkii ugu xumaa muddo 10 sano uu ka dhacay gobolka Kashmir qaybta ay Hindiya maamusho. Mr. Khan oo khudbad ka jeedinaya telefishinka qaranka ayaa ugu baaqay Hindiya inay keento caddayn ay ku taageerayso eedaynta in Pakistan ay weerarkaasi ku lug lahayd. Imran Khan ayaa Hindiya u ballan qaaday baaritaanka wixii dhacay. मैं आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ऑफर कर रहा हूं maanta waxaan jeclahay inaan yabaha u sameeyo xukuumadda India waxaan diyaar u nahay nooc kasta oo baaritaan ah bal in Pakistaaniyiin ay ku lug leeyihiin iyo in kale haddii aad haysaan tallaabo sirdoon oo ah in Pakistan ay ku lug leedahay noo soo gudbiya waxaan idin ballan qaadayaa inaan tallaabo qaadi doono कि पाकिस्तान इन्वॉल्वड है वो हमें दे मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे. ra'iisul wasaare Imran Khan ayaa sheegay in dawladda Hindiya daandaansiga ay waddo u yahay mid ay ku doonayso inay sare ugu qaado taageeradeeda ka hor doorashada dalkaasi. Imran Khan ayaa sheegay in uusan ogolaanaynin in Pakistan ay argagixisada ay saldhig ku yeelato. हम हिंदुस्तान में सुन रहे हैं आवाजें सुन रहे हैं मीडिया पे सुन रहे हैं warar badan ayaa laga soo gaarayaa dhinaca Hindiya warbaahintooda iyo siyaasiyiintoodaba iyagoo leh waa in Pakistan cashar loo dhigaa waxaana jira in Pakistan si weyn looga soo horjeedo ugu horreyn waxa isweydiin mudan hal wadan iyo xaq u siiyay inay iyadu go'aan iskeeda u gaarto iyada oo dal kale qareen garsoore iyo xukun fuliyo u noqonayso oo dambi ku xukumayso waxay tahay cadaaladda noocaasi ah talabaad waa sanadkii adiga lagu dooran lahaa marka waxaad doonaysaa inaad cod badan ku hesho haddii aad Pakistan cashar और हम समझते हैं कि इलेक्शन में ये बड़ी बूस्ट मिलेगी कि अगर पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए. wiilka u dhalay madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa si rasmi ah waabihii ugu dalacsiyay darajada generaal oo ah darajada labaad ee ugu sarreysa ciidamada dalkaasi. sida degdega ah Kainerugaba Muhoozi 3 jeer muddo 6 sano ah loo dalacsiyay ayaa horseeday in dad badan ay aaminaan in loo diyaarinayo inuu bedelo aabihii Museveni. Yoweri Museveni ayaa madaxweyne ka ahaa Uganda tan iyo 30 sano ee la soo dhaafay. dadka dhaliila General Muhoozi ayaa su'aal galiyay in khibradiisa military qiil looga dhigo karo dalacsiintiisa. waxa uu beeniyay inuu doonayo in dhawaan uu siyaasadda galo. baarlamaanka dalka Ruushka ayaa meelmaray sharci ka mamnuucaya ciidamada dalkaasi in macluumaadkooda ay ku baahiyaan baraha internetka markay howlgallada ku guda jiraan.
sharcigan ayaa ku soo beegmaya kadib markii ciidamo howlgallo ku jiray qoraallo soo dhigeen baraha bulshada taasi oo shaaca ka qaaday goobta ay ku sugnaayeen oo ahayd bariga Ukraine kadibna Suuriya iyadoo ay jirtay in dowladda Ruushka ay beenisay in ciidamada ay ka joogaan deegaanadaasi ciidamada ayaa laga mamnuucay inay daabacaan sawiro ama macluumaad qeexaya goobta ay ku sugan yihiin ugu dambeyntiina dowladda Masar waxay sheegtay in laamaha ammaanka dalkaasi howlgal ay ka fuliyeen gobolka Siinaay ay ku dileen 16 ka mid ah maleeshiyaadka halkaasi ka dagaalama wasaaradda arrimaha gudaha Masar ayaa sheegtay in maleeshiyaadka ay qorsheynayeen in magaalada Al-Caarish ay ka fuliyaan weeraro booliska Masar waxay gacanta ku dhigeen hub badan oo ay ka mid yihiin waxyaabaha qarxa militariga iyo booliska Masar ayaa tan iyo sanadkii la soo dhaafay gobolka Siinaay ka bilaabay howlgal ka dhan ah maleeshiyaadka halkaasi ka dagaalama isniintii 3 ka mid ah booliska Masar ayaa ku dhintay qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay magaalada Al-Qaahira halkaad warkaasi kala socoteenna waa BBC aan dib idin kugu celiyo barnaamijka qaybihiisa kale aad buu mahadsan yahay ciise xaaji oo inala socodsiinayay wararka caalamka ee BBC-da imikana dhagaystayaal u diyaar garowaa qaybaha kale ee barnaamijka aanu ku bilownay iyadoo weli aan laga gaarin khilaafka diblomaasiyadeed ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya wax xal ah ayaa waxaa soo baxaya dood ku aadan ganacsiga qaadka ee Kenya ay u dhoofiso waddanka Soomaaliya qaar ka mid ah ganacsatada qaadka ee magaalada Muqdisho ayaa hadaba sheegay inay joojinayaan qaadka uga yimaada waddanka Kenya iyagoo taabadalkeeda sheegay inay u wareegayaan suuqyo kale oo gobolka ku yaala dhowr iyo 10 diyaaradood oo qaad sida ayaa maalin kasta waxay tagaan Soomaaliya kuwaas oo ka baxa waddanka Kenya sayeshe 4 maalmood ee la soo dhaafay waxa magaalada Muqdisho tagaysay diyaarad qaad ka keentay waddanka Itoobiya dhanka kale ganacsatada qaadka ee dalka Kenya ayaa shalay sheegay inay dibana u noqdaan mar kasta oo uu soo baxo khilaaf dhexmara labada dawladood hadaba wararka ku saabsan ganacsatada qaadka ee magaalada Muqdisho waxa warbixintan inooga soo diray wariyahayaga Ibrahim Maxamed Aadan xiisada siyaasadeed ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya ayaa durba shaki kala dhex dhigtay ganacsatada qaadka ee labada wadan iyadoo warar kala duwan loo kala tabinayay labada dhinac taas oo saameyn ku yeelan karta xiriirkooda muddada fog jiray xubno ka tirsan ganacsatada qaadka ee magaalada Muqdisho oo saaka la hadlayay dadka wararka fidiya ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay joojiyaan qaadka ay ka soo dhoofsadaan dalka Kenya iyagoo sabab uga dhigay doodo dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyay la isku dhaafsanayay baraha bulshadu ay ku wada xiriirto ganacsade Qooje Maxamuud Qayli ayaa sheegay inay iska joojinayaan qaadka uga yimaada Kenya taa badalkeedana ay heleen suuqyo ka macaash wanaagsan qaadka waa iska joojinaynaa waxaanan helay mid ka fudud oo qudaartayada iyo kalluunkayaga iyo magarata lagu bedelayo saas adligeed kan waqtigiisi waa dhacay taymkiisi waa dhacay meeshiisa ha u dhaafeen ayaga og meeshay geynayaan ayagu hadday ciidooda danaynayaan anagu ciidayada iyo badayada iyo carrigayaga aan danaynayn wixii intaa ka baxsan waxay noqonaysaa hawl siyaasadeed dawladda iyada aan uga dambaynayn mar la weydiiyay ganacsada Qooje sida ay ku dabooli karaan dalabka suuqa qaadka ka jira haddii la joojiyo qaadka Kenya ayaa ku jawaabay inay heli karaan suuqyo kale oo gobolka ku yaala oo inta ay doonaan oo tan ay ka soo dhoofsan karaan intii baahideedu noqoto hadba intii baahideedu noqotaa wacanayna awal midkaan mid ay ugu dhibaataynayeen naga soo dabararayeen dib badan noo geysanayeen asagoo qallalan noo keenayeen asagoo qaali ay naga gadayeen ayay noo keenayeen hadda laakiin mid anagu inta rabnaan dirsanayno wixii na qarciyana aan ka qaadanayno baan qaadanayna awal qoryo qallalan bay noo keenayeen diyaaradaha noogu keenayeen saas adligeed waxa weeye qaadkoodii waa laga gudbay waxa weeye waqtigiisii waa dhacay waxa weeye Soomaaliyana Soomaali baa leh Cabdimanaal Cabdilaahi Soofe oo isna ka mid ah ganacsatada qaadka ayaa wariyaasha u sheegay in markii horeba duruufihii waddanka ka jiray ay ku kalifeen in ganacsi hal dhinac ah ay sameeyaan laakiin maanta waddanku dawlad leeyahay ay tahay in wixii aan faa'iido ku jirin laga joogsado annaga waxa waaye qaadkanka ganacsigiisa awal waxaa noo geeyey burburkii iyo dawlad la'aantii iyo dhibaatooyinkii la soo maray ayaa waxaa laga raadinayay nolol maalmeedka in laga helo sidaas awgeed maantay oo aanu helnay dawlado aanu leenahay markaan waxaa tiigsanaysaan inaad horumar gaartaan ayaa hadda Kenya xusuusisay inay waxa ay nagu haysay dhibka ahaa iyo in ayaga ka soo qaadaynay ganacsiga annaga waxa waaye Maawatu Muqdisho waxaan hantideena ku beelnaa oo soo gadnaa waa cagaarkaas haddana waxaan celinno oo aan xagga u celinaa ma jirto inkastoo ay jiraan ganacsiyo kale oo ay wadaagaan labada wadan ee Kenya iyo Soomaaliya ayaa haddana mar kasta oo ismaandhaaf dhex maro dawladaha labada wadan waxa ugu badan ee laga hadlayaa ah qaadka Kenya u soo dhoofiso Soomaaliya kaas oo maalintii lagu qiyaasay $100,000
sanadkii 2016 ayaa dowladii madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxay muddo kooban joojisay qaadka ka yimaada Kenya balse markii dambe waxaa dib loo bilaabay markii labada madaxweyne ee labada wadan ay heshiisyo dhowr ku kala saxiixdeen magaalada Muqdisho. Ibrahim Maxamed Aadan BBC Muqdisho. ibraahim waa u mahadsan yahay haddaba ka ganacsiga qaadka maxaa ka dhigay barta ugu jilicsan ay dhibaatadu ku habsato markii ay madmadow soo kala dhex galo labadan dal waa Soomaaliya iyo Kenya. Su'aashaas iyo kuwa kale ayaa waxaan weydiiyay Dr. Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo igu warramay khadka telefoonka. horta inta badan waxa weeyaan wadanka Kenya iyo wadanka Soomaaliya kama marmaan ganacsi fara badan oo Soomaaliya wadankan degan oo dhaqaale badan ka sameeyay dhammaan badan expertise oo fara badan oo wadanka Soomaaliya ka shaqeeyaan oo macnaha Kenyan ah yani xilligan macnaha tensionka hadii lagu soo aadiyo macnaha wax wanaagsan ma aha oo runtii hadda la xalinayaba hadda madaxda ay gacanta ku hayso hadii macnaha taalo dan leeyahay waa khalad weeyaan laakiin qofka ganacsanaya sidiisaba oo Soomaaliga ah isaga ku xiran tahay nooca badeecada uu qaadanayo qofka ganacsiga yani loo maryeeri waxaan qaato lama dhaha hadii markii ay qaadka ay qudaar ku bedelanayaan oo yani qudaarta nooga raqiisan nooga fiican ay leeyihiin waa go'aan ganacsiga Soomaalida u taalo weeyaan laakiin yaana la xiriirin arintan macnaha waxa weeyaan xiisada yar labada wadan soo dhax gashay oo aan rajeynay maalmaha dhoobeen la xalin doono oo wax weyn aan ahayn marka yani in la bambooniyaan diida maartii yani in la xiriiriyo arinta badda iyo arintan maartii yani xiisada la xiriiriyo baa daran laakiin dadka Soomaaliyeed ee ganacsada badeecada ay qaadanayaan iyo nooca ay qaadanayaan iyo meesha ay qaadanayaan iyo halka ay geynayaan waa mid ayaga u taalo weeyaan haddii ay dhacdo marka sida ay sheegayaan qaar ka mid ah ganacsatada magaalada Muqdisho ee qaadka in qaadkii tagi jiray magaaladaas ay aad ku tirada badnaa la dhimo ama kala bar u dhimaba maxaa ku iman kara ganacsadii qaadka halkan iyo kuwii halka joogay iyo dadkii nolol maalmeedkooda ka heli jiray طبعا يعني dadka ganacsatada wadanka Kenya ee qaadka dhoofiya dhibaato fara badan baa ku imaanaysa maxaa yeelay waxay weynayaan suuqaada weyn ee Soomaaliya ay ku lahayn weynayaan dhinaca kale marka ka eegtin dad badan oo waxa qoysas fara badan oo Soomaaliya jira oo ilmahooda ka biisho macna qaadka ka biisho oo gudaha Soomaaliya ku nool kuwaas ayadana way afagta garin doontaa si kasta soo duub waxa weeyaan arinta waxay ku haboon tahay wata yani waxa weey qofka Soomaaliya ee ganacsanaya si uu taala badeecad u qaadanayo yani waxa dawladda ku xiran ma ahan marka policy-ga hadda policy dawladda ka imaaday ma aha baa dawladda dawladood waxa ay arin ay ka hadleen ma ahan law arin dadka ganacsatada ka soo yeerayso weeyaan laakiin ma ahan waxa hadda dawladda Soomaaliya ay ku dhawaaqayso dawladda Kenya ay ku dhawaaqayso ma ahan marka qofka ganacsanaya ganacsigiisa say u taalo cid badeecad u qaadanaya meesha geenaya meesha ku gadanaya say u taala marka inuu qofka ganacsatada sikiisa siyaasadda soo dala ma ahan waxa weeyaan ninkan ganacsiga waxa weey ganacsigaas yani waxa weeyaan badeecadiisa asaa xaru ah meesha ku gadanaya iyo qiimaha ku gadan inta wasaga ya xurba ditore markasta oo khilaaf dhanka diblomaasiyadda uu soo kala dhex galo labadan dal ee Soomaaliya iyo Kenya waxaad moodaa in qaadka uu yahay meesha ugu jilicsan maxaa sidaa ka dhigay waxa weeyaan inta badan qaadka wadanka Kenya faa'iido fara badan ayaa ka soo gasho qoysas badan oo Soomaaliya way ku nool yihiin marka waxa la kala marka qaadka waxa weey waa badeecada ugu weyn ee runtii wadanka Kenya Soomaaliya ka timaado weeyaan inta soo diyaaradood ayaa soo xalba ka duushay magaalada Nairobi oo aad garoomada kala duwan ee Soomaaliya aada oo qaadka geeya qaadkaas inta badan waxa laga qaado wadanka Kenya laga qaado wadanka Kenya dhaqaale fara badan ayaa ka soo gashay wad ogtahay waxa weeyaan inta badan wadamada Europe sida Mareykanka wadanka Ingiriiska waa laga mamnuucay qaadka la geeyo marka wadada kaliya u furwaxay marka qaadka dadka qaadaydo inta badan waxay xoogooda ku xiran yihiin oo ay qaadka geeyaan wadanka Soomaaliya suuq weyn halkaas ayaa ku yaala marka waa dhici kartaa inta badan markii macnaha yani dib labada soo dhaxgala walaanagu qaadka aan ka qaadnaayo macnaha waxa weeyaan inta badan maartay yani ganacsiga qaadka iyo suuq weyn oo Soomaaliya ka furan suuq baan ka xirina macnaha waxa weeyaan waxa lagu jilicsanaya ama lagu beer la xawsanaya ama lagu beer jilicsanaya wadanka Kenya ma laga yaabaa marka in arintaas ay horseedaba in labada dal ay isfahmaan oo ay dhinaca wanaagga ka eegaan oo dhahaan dhaqaale badan iyo waxyaabo badan baa noo dhaxeeyay wixii kale aan iska daboolno wanaaggan ku soo laabanno inta badan waa la rajeynaya labada waddan way ka shaqeynayaan madaxda Kenya way ka shaqeynaysaa madaxda Soomaalida way ka shaqeynaysaa si la sugu iman lahaa arintan loo xal fiican looga heli lahaa runtii waxa weeye waxaan rajeynayaa runtii aan rajo badan ka qabaa arintan inay dhamaan doonto oo labadan waddan iyo labadan shicib diiraanka ah dana badan ay ka dhaxeeyaan ilaa hawl caadi isugu socon doonaan Dr. Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed ayuu kaasi khadka telefoonka ayuu